kulanti wacan dhageystayaal halkani waa idaacadda Afrika magaalada Muqdisho ku soo dhawaada qodobada wararkeena kuwada ugu waaweyn aad ku maqli doontaan dhageystayaal waxaa ka mid noqonaya madaxda maamul goboleedyada oo ku soo qulqulaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaal ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle Turkiga oo iska fogeysay eedayn uga timid mucaaradka Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay warar sheegaya in Soomaaliya iyo Kenya ay ka heshiiyeen kiiska badda midowga musharaxiinta oo shuruud hor dhigay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya weerar askari Kenyan lagu dilay oo ka dhacay gobolka Lamu ee dalkaasi Kenya akhbaaraadka dibadda wararkeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya garsoore laga afduubay maxkamad gudaheed xilli xog laga helay kuwacay baraanka ku taagan yahay awow aamus waxaan dhageysanayaa war ka baxaya Radio Africa adeer idaacadda Afrika kula dhageysta ka fur adeer albaabka ha dhageysta warka idaacadda adeer kale idaacadda la dhageysta intaas dhageystayaal waxay ahaayeen qodobadeennii ugu waaweynaa haatanna ku soo dhawaada iyagii oo faahfaahsan dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal maanta ka dhacay degmada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle faahfaahin kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal culus oo maanta magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ku dhaxmaray ciidamada ilaalada madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo kuwa booliska oo isku dhinacaya maleeshiyaad macawisley ah dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maleeshiyaadkaasi macawisleyda ay weerar ku soo qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada ilaalada madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo kuwa boolis ah oo ku taala xaafadda hanti wadaag gaar ahaan laabta badacas iyaga oo ka careysan xarigii loo geystay toddobaadkii hore taliyahooda lagu magacaabay Yuusuf Macalin wararka ay la helay ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka uu ku dhintay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Cali Axmed Godad oo kamid ahaa dhalinyarada baratikolka ee madaxweynaha maamulka Hirshabelle halka mid kale oo magaciisa lagu sheegay Ciise uu ku dhaawacmay dhinaca kale wararka ayaa waxay sheegayaan in uu jiro khasaare soo gaaray dhinaca ciidamada macawisleyda waxaana maanta xaaladda kacsanaan laga dareemayaa magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi laamaha amniga magaalada Jowhar iyo maamulka degmada weli kama aysan hadlin dagaalka waxaana la soo sheegayaa in labada dhinac ee dagaalamay ay weli isku hor fadhiyaan halkii ay ku dagaalameen u diyaargarowga shirka wadatashiga ee u dhaxeeya dowladda Soomaaliya maamul goboleedyada ayaa haatan laga dareemayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya diyaargarowga shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka qaranka ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo lagu balansan yahay in uu maalinta berita ka furmo magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho gudiyada farsamada oo maalmihii u dambeeyay oo dhan ku howlanaa diyaargarowga shirweynaha qaranka ee arrimaha doorashooyinka dalka ayaa intooda badan soo gabagabeeyay howlihii ay wadeen saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho ay soo gaaraan madaxda dowlad goboleedyada ee ka qayb galaya shirkan uu saldhigu u yahay heshiiska 17 September ee lagu gaaray magaalada Muqdisho dowladda Turkiga ayaa iska fogeysay eedayn uga timid mucaaradka Soomaaliya xukuumadda Turkiga ayaa iska fogeysay in mas'uul ay ka tahay falalkii lagu eedeeyay ciidamo ay u tababartay dowladda Soomaaliya kadib cabasho ay dhawaan u gudbiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad Gorgor oo ay soo carbisay Turkiga ayaa lagu eedeeyay in awood xad dhaaf ay u adeegsadaan mucaaradka oo uu khilaaf ku aadan arrimaha doorashooyinka kala dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mucaaradka ayaa ku eedeeyay ciidankaasi inay ku lug lahaayeen iska horimaad ka dhacay Muqdisho 19 Febraayo iyo 25 Abriil ee sanadkan kuwaasoo qalqalgeliyay ammaanka caasimadda mucaaradka ayaa u sheegay Turkiga in gaadiidka gaashaaman ee uu ku taageeray ciidamada dowladda Soomaaliya loo adeegsaday caburinta shacabka halkii lagu faa'iideysan lahaa dagaalka ka dhanka xarakada Al-Shabaab wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa qoraal ay soo dirtay waxa ay ku sheegtay inay jiraan dad magac xumeyn ku sameynaya dadaalada ay xukuumadda Ankara ku taageerayso Soomaaliya waxaanu ka warhaynaa dad wada olole lagu weeqayo sumcadda Turkiga ee gudaha Soomaaliya waxaana la og yahay in dadkaasi ay doonayaan in dalal kale ay ku lug yeeshaan doodaha siyaasadda ee gudaha balse isku daygoodu ayaa ah mid guul dareystay ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Turkiga wasaaradda ayaa sheegtay in ciidamada Turkiga uu tababaro ay hoos tagaan ciidamada xoogga qaranka Soomaaliya ayna mas'uul ka tahay dowladda Soomaaliya
qoraalkan ayaa lagu sheegay in Turkiga uu door muuqda uu ka qaatay dadaalada caalamiga ah ee lagu dhisayo ciidamada nidaamsan anshax leh isla markaana midaysan oo ay leedahay Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay wararka sheegaya in Soomaaliya iyo Kenya ay kala saxiixdeen heshiiska badda. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa beeniyay wararka sheegaya in dowladda Soomaaliya iyo Kenya ay heshiis ka gaareen kiiska badda oo weli hor yaalla maxkamadda ICJ isla markaana ay garwadeen ka ahayd dowladda Qatar. Wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in dowladaha nacfiga ka soo baxa 50% uu dal walba qaadan doono si loo soo afjaro kiiska badda dheeraada ee maxkamadda ICJ hor yaalla. hase yeeshee Mahdi Maxamed Guuleed ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa warkaasi beeniyay. kiiska badda u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa uu hor yaalla maxkamadda ICJ, hase yeeshee tuhunka la xiriira heshiiska ayaa soo baxay markii erga ka socda dowladda Qatar uu safar ku yimid Muqdisho iyo Nairobi lana kulmay madaxda dowladda Kenya iyo kuwa Soomaaliya, isla markaana dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay soo celisay xiriirkii kala dhaxeeyay dowladda Kenya. Ugu dambeyntii ururka Xisbullah ayaa sheegay inaysan ka qayb galayn dagaalka Gaza. weerarka dhimashada badan ee Israa'iil ay ka wada Gaza ayaa indhaha caalamka ku sii jeediyay xuduudda Lubnaan iyagoo filaya in jawaab ka timaado ururka Xisbullah. hase yeeshee dadka waxa indheeya ayaa ku doodaya in ururka ay taageerto Iiraan ay u badan tahay in aysan qaadan halis ay dagaalka buuxda u galayaan iminka. dhacdooyinka maalmihii tagay ka dhacay xuduudda ay abuurtay xiisadda, hase yeeshee iyadoo Lubnaan ay hadda ku guda jirto xasarada siyaasadeed iyo mid dhaqaale ayaa kooxdan Shiicada waxa ay u muuqataa iyadoo doonaysa in ay ka fogaato dagaalka. ma jiro wax hadda soo jeedinaya in xiisadda ay ka darto, waxaase sidaa yiri Sadiq Al-Nabulsi oo ah aqoon-yahan Lubnaan oo ku dhow ururka Xisbullah. Xisbullah iyo kooxda Hamas ee Falastiin ayaa hagaajiyay xiriirkooda kadib markii ay ka soo kala jeesteen labada dhinac ee dagaalka Syria 10 sano ka hor. Xisbullah oo la aasaasay 1980kii si ay ula dagaalanto qabsashadii Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ayaa dib u noqotay kooxda ugu weyn ee Iiraan ay ku dagaal hoos gasho, iyadoo howlwadeena ku leh dalalka Syria, Ciraaq iyo Yemen. kooxda oo ka awood badan ciidamada dowladda Lubnaan ayaa 6 sano kadib markii ciidamada Israa'iil ay 2000 ka baxeen Lubnaan waxay 2006 dagaal xooggan oo socday 34 maalmood la gashay Israa'iil, hase yeeshee kadib ma jiraan dagaal dhex maray labada dhinac oo la taaban karo. Isniintii gantaale laga soo tuuray deegaanka Shabeelle ee koonfurta Lubnaan ayaa ku guuldareystay in ay soo dhaafaan xuduudda, waxaana ciidamada Israa'iil ay ku jawaabeen 22 gantaal ay ku garaaceen dalka Lubnaan. guud ahaan warkii oo aad ka dhageysanayseen idaacadda Afrika magaalada Muqdisho saaxiibayaal waa nageynta.